السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. warbaahinta Soomaalida ogaadeenaya ay ka howlgasha wadanka Canada ayaa maanta waxa ay xafiiskeeda ku booqatay jaaliyada Soomaalida ogaadeenaya ee magaalada Edmonton. Waxa xafiiska fadhiyay gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida ogaadeenaya ee magaalada Edmonton mudane Cabdinaasir Maxamed Caydiid oo loo yaqaan Galaal. Gudoomiye ku soo dhawow warbaahinta Soomaalida ogaadeenaya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن ومع سنتهاي وأنا دوه. وهجاج waxaan kugu soo booqanay waxa shir maqalay in shir weyn uu ka dhacayo gobolkan Alberta gaar ahaan magaalada Edmonton. Gudoomiye warbixin kooban naga sii bal shirka iyo waxa uu ku saabsan yahay. عبد الرحمن ومع سنتهاي شركة وشر لو مقعد دري شركة ولا تشجع جالية الصومالية وادين ودن كندا وشركة أنت أنا وجهي أما ترتبى أسوي النوع عيسى اللي قبته أما لو قبته كندا شركة سوق كده عندنا حفيز كندا إنه كتير هول كيسوينا مقالة إدمنتون وحنا مرتجل إنه تجاريات إدمنتون وحكروا كسوق جلدونا شن تجاريات كندا لما يسوي ما عندنا شركة دولية هذا وحنا ما عندنا جالية دمان كان عندنا برية كندا يعني أنا كنا القبل كان ألبرتا مقالة مدحيس إدمنتون شركة مرتجل إنه دولية هذا مركز شركة شنو عاسوية عبد الرحمن إن شاء الله تعالى وحنا رجينا إنه نوقف صوم. ma noo sheegi kartaa bal wufuudaas kala duwan ee gobolka ama magaalooyinka ay ka kala imanayaan والله سنت عبد الرحمن وفوده waxay ka iman doonaan dhamaan gobolada ay ka jiraan jaaliyada Soomaaliyeed ama sida macnaha muuqato uga shaqeeyaan sida magaalada Ottawa magaalada madaxda wadanka Toronto Kitchener Winnipeg Calgary insha Allah taala inta way ka wada iman doonaan waxaan ku daraa kala forma Muri oo ay iman doonaan wufuud sarajinin يعني أنت إن شاء الله تعالى وكيما دون عبد الرحمن. وهجاج شركة وشر أدوين سيدا مقالة النجوسو قاعدي محيطها وشيدة شركة أقبنا إنسان وقت كان هذا اللي تشوف. وما صنتهاي وحنوار كواسع في أساسي شركة سي وحنو مرينا وكسر بيني يحل جوف عناي نحل أرجيني إن شاء الله تعالى إن نتوبيا كرينه مركب وحنو بهنا وطش بدن كجالي هذا يا متى كنا gobolada galbeedka ee ka shaqeeya halganka marka insha Allah taala xilligan waxa ku soo beeray daan si kooban uga jawaab su'aashaadii inaan u aragno xilliga ku haboona ee si imaan lahayn ka jaaliyadahan ama ka dadka halganka u shaqeynayeen ka tashan lahayn masiirka halganka iyo insha Allah taala inaan sida rejiimka uga guuleysan lahayn muddo dhow insha Allah taala okay aad baad mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida ogaadeenaya mudane Cabdinaasir Maxamed Caydiid oo loo yaqaan Galaal waxa kale oo kamid ah qabanqaabiyaasha shirka oo iyaguna ku sugnaa xafiiska mudane Magan Cabdullaahi Maxamed oo loo yaqaano sheekeeye oo isaguna fadhiya dhinaca midig ee xafiiska shaqadana ku howlan mudane ku soo dhawow warbaahinta Soomaalida ogaadeenaya ee ka howlgasha wadanka Canada. Cabdiraxmaan waa baadsantahay waan dhawahay sidoo kale anaguna waan ku mahad celinaynaa waxa jirtay inuu shir la qabanayo sida uu gudoomiyuhu ka dhawaajiyay bal hadda shirka la qabanaya qaabka aad u qabanaysaan bal hadda warbixin naga sii mudane sheekeeye maadaama aad kamid tahay qabanqaabayaasha shirka. Cabdiraxmaan waa mahadsantahay shirka hanaankan ugu talagalay waxa weeye sida horta uu gudoomiyuhu yiri waa 3 maalmood maalinta koowaad oo warbixin ku saabsan iyo sidoo kale maaragtay wixii warbixinta ka soo baxo su'aalaha iyo jawaabahoodii maalinta labaad oo loogu talagalnay inay doodo kala duwan oo qodobo kala duwan oo diyaar ah oo lagu soo talagalay laga doodi doono kadibna loo kala bixi doono kooxo kala duwan oo iyaguna ka sii falanqayn doona qodobo iyaguna sii gaara oo halka ka soo bixi doona wixii markaa ka dambeeya waxaa loo gudbi doonaa maalinta saddexaad oo ah maalinta shirka gunaanadkiisa iyo gorfayntii qodobadii maalintii labaad laga soo dooday iyo sidoo kale wixii xoga iyo wixii maaragtay aragtiyooyina iyo wixii tala iyo tusaalaha ee ka soo baxay maalintii koowaad oo ah maalintii ugu horeysa ee shirka oo ah maalinta Jimcaha waa hagaag xubno intee leeg ayaa shirkan ka soo qayb galaya mudane sheekay waxaa ka soo qayb gali doona xubnaha ugu tirada badan ee ay jaaliyadani martigelin doonto oo sidoo uu gudoomiyuhu hore u yiri ba soo imaan doona dacalada dalka sida caasimada dalka Ottawa sida jaaliyada weyn ee ku leenahay magaalada Toronto Kitchener Winnipeg Calgary
iyo midda suuriyada bixinaysa oo ah jaaliyadan aanu ka tirsannahay ayaan ku yeelaynin oonu maaragtay madaxdeedii iyo maamulkeedii ka mid ahaano ee Edmonton xagga tira ahaan xilligan hadda kuma dhihi karo tiradaas kasoo qaybgeli karta laakiin haddii uu xilligu inagu sigo maalinta ay shirku furmo adaa indhaha ku arki doona tirada kasoo qaybgeli doonta kadib markuu howlkaasi soo buuxsamo waa hagaag anoo dhinaca kale u dhigaya haddana su-aashayda madaxda jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeynaya ayaa kasoo qaybgeliya shirka madaxda waxay kasoo qaybgeli doontaa madax kala gedisan oo ay ka yihiin xubnaha golaha dhexe ku jira iyo guddiga filinta labadaba waa hagaag kaasina wuxuu ahaa magan cabdullaahi maxamed sheekeeye magan iyo guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ogaadeynaya cabdinaasir labadiinaba waan idin mahad celinayaa waktiga fiican aad siiseen warbaahinta soomaalida ogaadeynaya shirkaasna oo ka dhacaya magaalada Edmontonna warbaahinta soomaalida ogaadeynaya si toos ah ayay uga soo qaybgalaysaa haddii ilaahay yidhaahdo wixii kasoo baxana waxaad si toos ugala socotaan warbaahinta soomaalida ogaadeynaya ee ka howlgasha caalamka oo idil waa aniga oo ah cabdiraxmaan sheekh magaalada Edmonton dalka Canada fi amaan illah